shalay afartii shantii barkii galnay markii gaadhay rasaastu qoriga aakaa ku bay bilaabeen waxa ku bilaabantay qoriga ugu weyn ee magaalada yaalla ku bilaabantay weli fursad baad haysataa madaxweyne fursad ayaad haysataa aad dembiga aad gashaad ku sixi karto oo aad kaga qaban karto oo maanta aan kuu soo jeedinayaa imika ciidanka magaalada ka soo saaray dadka leynaya dhammaan raggii gabadfalada galayna soo qaba maxkamadda soo istaaji madaxweyne markaad jananka booliska iyo ka militariga iyo ka sirdoonka aad reerkiina ka dhigatay ku xigeenadana aad reerkiina ka dhigatay ayaan garanaynaa waxa u socoto laba constituency wadanka waa ka dagaal ka dhacay constituency-ga dhulbaanta la oran jiray waa kii tagay dawladdaada markaad qaybinaysay waxaad u qaybisay sidii maalintii 2017 oo Muuse dawladda qaybinay Muuse bixiyo wuxuu u qaybiyay xuduudda ugu shaysa Somaliland ee garowe dusheeda saaran ilaa ta ugu shaysu qaybiyay adigu laakiin xuduudda halkan joogto og leeyahay aad wax qaybinaysay sidaad wax qaybisana waad ogtay madaxweyne anu meehi ragga dhiiga dadkiisa masaariifsada meehi horano maan masaariifsan maantana masaariifsan maayo iyaga ay soo doortay halkan iyaga ay keenay maalmo dhaweytoole waad arkaysaa wixii ugu dhacayo waxaan u liqayon lahaa war saaxiibka hunu muukibu ku jiraaye intaad wax la xallin karayso intaad wax la hagaajin karayso intaad maad aragtay miiska dushiisa wax kula hagaajin karayso kula hagaaji buu qorshaygu ahaa dadkaygina wax u qaateen inaan sida kuwa tuugtay iyaga iibsada ee kuma bidhigooga inaan hayba u qaateen way shikiyeen waayo waxa u barteen dad badan oo dulliya oo ay 30 sanadood Soomaaliland ku metelay oo iyaga dhibaatadood iyo dhiigoo ku naaxay ayay u qaateen qofku markuu sagada ka laba boodiyad inuu iyaga u soo shariyay boodiyad iyaguna war walaalayaal iyagana waxa la reeb boorema anigu ninka meeyi dhalinyarada waxa la ninka meeyi anigu ninka meeyi waxaan idinlaahay walaalayaal arrinkaasi rag baa waa la iskugu imanayaa waa inuu isku imanaa salaadiintiina waxa la kacoo hadla shir isku keena iraadoon intayna cadeedu dhicin ka soo saarin ciidanka magaalada khasaarahaana aanu ka bixin raali gelin oo aanu wadadeeda marin talaynu isku imanaa sidoo rageeli jiray baan yeelina hadii la yiraahdo dadka hadii ciidanka militariga lagu leynayo xaq waxa uu yeelanay istifaacan Cabdiraxmaan Baafi Sakaydi way istifaaciyaan hadda ciidanka militariga magaalada ka soo saari weydo ciidanka militariga hadda magaalada ka soo saari weydo oo raggi dambiga kale soo taagi weyda maxkamad madaxweyne waa la iska ka difaacaya dadkuna iska ka difaacayaan sida ugu dhaqsaha badan talaan isku imanaya dhalinyarada waxa leeyahay magaalada fadhiista annaga ay banayna waa la shirayaa kuma soconayso sidii hore kuma soconayso haday dhaguhu daloolaan aad iyo aad baad u maasantiin xidhwan buurama maxay u tag weydo oo aad markaa